casharkeena konton iyo shanaad maanta waxaan baranaynaa sida looga codsado caawimo dukaanka dharka dhexdiisa. Asking for help in a shop. Shopkan ama dukaankan waa dukaanka dharka ayaan ka hadlaynaa. Customerka iyo macmiil ayaa hadlayaan, ama qof dukaanka joogo iyo macmiil ayaa isla hadlayaan. Labada tusaale soo qaadana waa A iyo B. A haddaan ku bilaawno, for example qofka macmiilka ah, excuse me, can you help me please? Can you help me please? Excuse me sida iga raali noqo waay. Qofka markaa wadada ii banay camal dhaysid, excuse me, iga raali noqo camal. Can you help me please? Ma i caawin kartaa fadlan? Please waa fadlan. B, qofka dukaanka joogo ayaa dhahayo, yes, of course. What do you need? What do you need? Ha, dabcan. Dabcan waa like of course, dabcan ayaa laga wadaa. Maxaad u baahan tahay? Maxaad u baahan tahay? What do you need? I am looking for some trousers. I am looking for some trousers. Waxaan raadinayaa xoogaa surwaalo ah. Some waa xoogaa ayaa laga wadaa, surwaalo ah. I'm looking for some trousers. I am looking, waxaan raadinayaa. I am sida aniga oo kale waaye. Looking na waxaan raadinayaa for some trousers. Surwaalo ayaan raadinayaa. What type of trousers do you want? What type of trousers do you want? Trouser waa hal markuu yahay. Trousersna waa markay badan yihiin. What type of trousers do you want? Surwaalo noocee ah ayaad rabtaa? What type noocee of trousers? Marka surwaalo noocee ah. What type of trousers do you want? Aad u baahan tahay. I need some smart trousers for work. I need some smart trousers for work. Waxaan u baahanahay xoogaa surwaalo qurxoon oo shaqo loogu talagalay. I need some smart trousers. Waxaan u baahanahay some, maxaan dhahnay xoogaa. Smartna qurxoon waay. Trousersna surwaalo. I need some smart trousers for work. Waxaan u baahanahay xoogaa surwaalo ah oo qurxoon oo shaqada loogu talagalay. You can qofka macmiilka markuu warsaday qofka kale uu jawaabayo muxuu leeyahay, you can find those on the left side of the shop. You can find those on the left side of the shop. Waxaad ka heli kartaa kuwaas dhanka bidix ee dukaanka. You can find xawaaye waxaad ka heli kartaa. Those kuwaas ayaa laga wadaa. On the left side. On the left side, dhinaca bidix of the shop dukaanka. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry. Thank you. Do you have any shirts? Thank you. Sorry, garaal noqda. And do you have any shirts? Mahadsanid. Wax shaatiyo ahna ma haysaa. And iyo ayaa laga wadaa, laakiin waa jumlad kaamilaysan. Jumladda hadda isla wada fasirno. And do you have any shirts? Wax shaatiyo ah ma haysaana. Yes, the shirts are in the middle section. Yes, the shirts are in the middle section. Maxaan dhahnay mar hore Englishkeena waa kan Britishka ah. Fadlan Englishka Britishkana u badan adduun weynaha laga isticmaalo. Yes, the shirts are in the middle section. Are in the middle section. Ha, shaatiyada waxay ku jiraan dhaxda, dhinaca dhaxda ee dukaanka. Can I see the white shirts? Can I see the white shirts? Ma arki karaa shaatiyada cadaanka ah? Can I see the white shirts?
ma arki karaa shaatiyada cadaanka ah. Can I waa luqad xushmad. Ma arki karaa inta qofka dhihi lahayd shaatiga cadka keen bal dhihi lahayd maxaa la can I see ma arki karaa shaatiyada cadaanka ah. Sure maxaa laga wadaa hubaal. Qofka waa hubinaysaa intaad qabani kartid waxaas oo tusaysid camal shaatiyada. Sure hubaal. Here are some white shirts. White waxaan dhahnaa cadaan, shirtsna shaatiyo markay badan yihiin. Markuu hal yahayna waa shirt. Hubaal waa kuwan shaatiyo cad. How much are the trousers? Waa meeqo surwaaladu. How much waxaa waaye waa meeqo. How much waa meeqo ama waa imisa. Are the trousers surwaalada waa meeqo ama waa meeqo surwaaladu. They are 35 pounds. Waxaa waayey 35 pound. Pound waa lacagta laga isticmaalo Ingiriiska ama UK-ga ama wadamada Ingiriiska, United Kingdom-ka laga isticmaalo ayaa la sida dollarka camal. Dollars kana pound ayaa la dhahaa. They are 35 pounds. Waxaa waayey 35 pound. And the shirts calaamad su'aal wadataa ama calaamada su'aalka ah. And the shirts shaatiyaduna. The shirts are 20 pounds each. The shirts are 20 pounds. Calaamada poundiga waayaan dhahnay. Poundna waa lacag sida shilin Soomaali, dollar waxaa dhahdid ama isticmaashay waa $20 halkiiba shaatiyadana. Great. Thank you for your help. Great maxaa laga wadaa qof marka wax ku wanaagsan camal ku sheega ama fiican. Great adii wax wanaagsan waaye ama fiican waaye. Waad ku mahadsan tahay caawinada caawisay dukaanka dhexdiisa sida aan dharka u kala helo camal. Great. Thank you for your help. Thank you for your help. calaamadaas ay wadata calaamada tacajub lahaa ma calaamada ku cajab gelinayso. Great wax ku cajab geliyeen camal waaye. You are welcome. waa lagu soo dhaweynayaa ama waa dhawdahay camal. You are welcome waa lagu soo dhaweynayaa camal ama soo dhawow sidaas camal waaye. You are welcome waa lagu soo dhaweynayaa. Enjoy your shopping. Ku raaxayso wax iibsigaaga. Cashirkeen halkan ayuu inooga egyahay. Fadlan haddaad kanaalkan ku cusub tahay subscribe saaro. English Somali Translation Hub ayaa la dhahaa. TikTok English kaba. Erayada dambana oo vocabulary-ska oo wada sheekaysigan aan ka qaadanay cashirka xigu ku qaadan doonaa insha Allah. Vocabularies from the lesson 56 ayaa noqonaysaa ku xirnow.